السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة والإخوات، خطبتنا maanta waxay ku saabsan tahay maadaama aanu nahay dad muslimiin ah oo Soomaali ah, luqadda Soomaaliga isku fahma. Marka hore waxaan isu dardaarmaynaa cabsida Ilaahay subxaanahu wa tacaala, lianna waxa weeyaan wax kasta aasaaskoodu waa inuu qofku ku saleeyo inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli geliyo. markaad Ilaahay raalli geliso, wuxuu kaa reebayaa aad ka harto, wuxuu ku farayaa aad fartoontood la imaado, markaasi arrimahaaga oo dhan way ku hagaagayaan adduun iyo aakhiraba. sidaas awgeed waxaa waajib nagu ah mar walba inaan isxasuusino cabsida Ilaahay subxaanahu wa tacaala. intaa kadib barnaamijkeena khudbadeena ku saabsan waxaa weeyaan, maadaama aanu nahay Soomaali, inaanu baraarujinno ummadda Soomaaliyeed hoggaankooda, arrimahooda siyaasadeed, masiirka ummadda Soomaaliyeed, inaanu ka hadalno. qof kaste culummo iyo keyrkoodba inay ka hadlaan, fikirka saliimka ana bulshada ay la wadaagaan oo u soo gudbiyaan ayaa waajib nagu ah. waxaan rabnaa inaan halkan aan ka caddayno hogaamiyaasha Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa maanta hoggaanka u shalay, gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayay khudbadeenaan maanta ku saabsan tahay. lian khudbadani waxaan ugu soo magac daray masayrkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo miro dhalay. masayr markaad maqasho, qalbigaagu wuxuu u degdegayaa qoys deganaa oo kala masayray, haweeney iyo zawjkeedii oo kala masayray. masayrku walaalayaal waa uu ka guda ballaaran yahay intaa. qofka muslimka ah ee wadaniyadda jecel, dadkiisa jecel, waxaa waajib ku ah inuu u masayro diintiisa, waxaa waajib ku ah inuu u masayro dadkiisa, waxaa waajib ku ah inuu u masayro dalkiisa. masayrkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuu miro dhalay markii uu u qiirooday dalkiisa iyo dalkiisa uu arkay khayraadkiisii sida loo isticmaalayo, markuu arkay madaxda Soomaaliyeed qaabka wax loogu yeeriyo, markuu arkay shacabka Soomaaliyeed ee sii baaba'ayo, dushoodana lagu kor ganacsanayo, hawada wax lagu kala cunayo, masaakiintii Soomaaliyeed ee dalkaa wax ku lahaydna ay dhimanayaan, gaajo iyo macluul u dhimanayaan, dagaallo ay u dhimanayaan, qawlaysato qayb shati diineed ku qawlaysata, qayb waxaa weeyaan ganacsi ka fahanta siyaasaddii oo qaab ganacsi u samaysa siyaasadda, oo halkaasi ummadii ku baabi'ey. markii uu arkay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qiiradii uu qiirooday, ayuu hawshani ku sameeyey, wuuna ku guulaystay, guushiina weli wuu wadaa. barnaamij haddii aad ku guulaysatid micnaheedu ma ahan inaad halkii guushi oga haraysid, waad sii wadaysaa ilaa aad halkii aad uga baahnayd ka gaarto. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo guushii uu gaaray halkiisii ayuu kasii wadayaa idanka Ilaahay subxaanahu wa tacaala.
waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa ninkani laba sifo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu jecel yahay saddex sifo aan iraahdo ayuu leeyahay sifada ugu horeysa waxa weeyaan waa qof layin oo jilicsan oo talooyinka qaata culimada iyo dadka ahlu diinka iyo dadka fikirka wanaagsan u sheega wuu qaata waxaa kaloo is leeyahay qadiyad wadaninimo qadiyad ku salaysan sharaftii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed in uu soo celiyo qadiyad noocaas ana uu leeyahay waxaa kaloo is leeyahay naxariis uu naxariisanayo dadka masaakiinta ah dadka fuqarada ah dadka hantidoodii ka baahan hantidii dalka khayraadkii dadka ka baahan dhaqaalaha iyo dakhliga oo soo galaya Soomaaliya dadkii ka baahna ayaguna waxa weeyaan wuxuu ku sifoobay inuu yahay nin ka danqada oo naxariista u turo inuu yahay sifooyinkaas qofka haddii ay ku kulmaan waa qof noqon karo qaa'id hogaamiye lagu aamini karo dalka cid kale aanan lagu doorsan karin culimadana waxaa ku waajiba inay dadka u caddeeyaan cidda hagi karto oo hogaamin karta wanaagga ku soo dabaali karto sharaftoodii soo celin karto inay ummadda ku baraarujiyaan ayagoon kooxna aan u aabayeelaynin cid kalena aanan ku fiirinaynin inay xaqa u caddeeyaan dadkan baaba'ay ee dunida oo dhan qaxootiga ku ah sanawaad qaxooti ku ah dunida ku kala rafaadsan ciddii isu keenayso wax u hagaajinayso inaanan laga hor istaagin ummadana loo sheego waa shay waajib ku ah qof kasta oo waxa weeyaan Soomaaliyeed culimo iyo qeyrkoodba in loo tilmaamo oo la yiraahdo war ninka doorta ninka hala doorto ninka waxa weeyaan ha loo dhiibto hoggaanka in la yiraahdo la tilmaamo waa shay xaq nagu caawiyo idan marka shacabka Soomaaliyeed meel kastoo dunida ay ka joogaan waxaan u sheegayaa in ay ninkaasi fiiro gaara u yeeshaan waxa weeyaan waa ninkii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu Soomaali badan ku badbaadiyay kuna badbaadin doono kuwa kale oo badan mulkiga iyo boqortooyada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ciduu doonu siiya qofka haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka helo sifo kamida sifaadkiisa sifo wanaagsan oo Ilaahay dadka uu ku jeclaado hadduu ka helo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa garabkiisa ah arlada ee samaawaadka inta ku nool baa jeclaanaysa markay jeclaadaan dhulka intii ku nooleedna waa jeclaanayaan oo waa kana waa u sacbatumayaan oo waa u yaacayaan soo dhaweyntiisa iyo maxabadiisa ayaa lagu tuurayaa qalbigooda lianna waxa weeyaan waxaa laga jeclaaday samaawaadka cadaalad baa laga helay cadaaladuna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa u jecel yahay naxariis baa laga helay oo uu naxariisanaya agoonta iyo masaakiinta iyo da'yarta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa uu sifo u jecel yahay wadaniyadu iyo qiirada dalkaaga inaad u qiirootidna waa wax sifo la jecel yahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu jecel yahay idan marka waxaa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed inaad arrimahaasi fiiro dheer u yeelataan waxyaalaha dhexdiinana aad dhaxda ka saartaan horay baa waxaan idinkugu soo gudbiyay fariin ah markay xaalad firirtana faragelinti maadana farquna ayaan nahay cadowgan fogeynaa wabillahi tawfiiq